laba iyo lixdan sano ayaa laga joogaa xilligii la hindisay calanka Soomaaliyeed oo haddana la soo bandhigay oo hadda ka dulbabanaya Soomaaliya iyo dunida inteeda kale. haddana waxa ay istaahishaa maanta oo kale in da'yarta Soomaaliyeed ee soo koraya loo soo bandhigo taariikhda dhaxalka u ah ummadda Soomaaliyeed iyo ka xog waramida calanka buluuga ee Cawaale. xilligii uu bilowday xurnimadoonka Soomaaliya waxay ahayd xilligii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee dunida oo ay kaceen dhalinyaradii ururkii gobonnimadoonka Soomaaliya ee SYL 13 ka koobnaa. wax gumaystuhu Ingiriiska iyo Talyaaniga dhagax iyo dab lagu tuuraba waxaa suura gashay in qayladhaantaas ay gaarto qaramada midoobay, isla markaa ay ka dhiidhiso sidii ummadda Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen xurriyad. allaha u naxariistee Maxamed Cawaale Liibaan oo ahaa hindisaagii calanka Soomaaliyeed ayaa waxaa laga wariyay in uu ku micneeyay naqshadda calanka Soomaaliyeed in uu yahay midab buluug oo khafiif ah oo wareegsan oo dhexda ay kaga taalo xidig shan gees leh oo midab cadaan leh. waxa uu sheegay in midabka buluuga uu muujinayo badweynta Indiya oo Soomaaliya ku geedaaman, halka midabka cadaanka ahi ee xidigta cadi ay muujinayso nabad jacayl iyo barwaaqo, isla markaana xidigta dhexda kaga taala ee shanta gees leh ay u taagan tahay shantii gobol ee Soomaaliya gumaystuhu kala qubay. Soomaalida ku dhaqan koonfurta waxaa gumaystay Talyaaniga, waqooyiga Soomaaliyana waxaa gumaysanayay gumaystihii Ingiriiska. gobolka NFD oo Ingiriisku u gacan geliyay dawladda Kenya. Jabuuti ayaa ina waxaa gumaystay Faransiiska, halka Soomaali galbeed gacanta ay gumaystuhu u geliyeen dawladda Itoobiya. maanta waa maalin qiimo iyo qaayo weyn ku leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay u dabaaldegaan maanta oo kale, waxaana laga joogaa 62 sano ka hor. waa maalintii calanka Soomaaliyeed samada loo taagay oo ay yeertay halheeskii ahaa Soomaaliya ha noolaato. waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho dareenkoodana cabiray maanta oo kale qiimaha ay iyagu ku leedahay iyo sida ay u dareemayaan maanta. qof walbana maxaa Soomaaliyeed oo ka tirsan ha joogo dibadda ama gudaha in wadankeena aan ilaalino. qof walba wadankiisa isaga ilaaliya horumarkiisa wax walba. mar qofna wadankiisa qofna wadan qoftada u ilaaliya malahan. haddii aad wadanka ilaalisan weysid qof kale oo ajaanib ah inuu ku imaado oo wadankan kula ilaalinayo ma jirto. maanta dareenkeyga waxaan ku cabirayaa maalinta ay tahay calanka Soomaaliya la taagay. aadaan ugu mahadcelinayaa dadkii hore u soo halgamay calankeena sharafta leh ee lagu sameeyay cirka. intaas waxaan aad ugu mahadcelinayaa ninka soo alifay calankeena Cawaale. waxaan leeyahay Soomaalida oo idin calanka inay aad u qadariyaan ee u qiimeeyaan, mar walba ay dhiiridaan dhalinyarada Soomaaliyeed waliba kuwa hadda soo baxayaan. magacayga aan ku bilaabay Seenab Yaasiin Geedi. calankeena mid kaliya oo anaka astaanteena oo wadan kasta gaar u yahay oo aan ku faani karno hideena iyo dhaqankeena. anaka Soomaaliya hadaan maanta calankeena ku faano calamo kale oo shisheeya ku faanana. Soomaalida waxa ku baraarujinaa waliba dhalinyarada inay calankeena ku faanaan. calankeena quruxda leh habeenkan qotomiyeen heesaas calankeena ay ka tarjumaysaa. calankeena dad badan u soo sida Soomaaliya xornimo u qaadan lahayd. ilaa haddana xornimadii qaarna waa ku jirnaa qaarna waa ka baxsanaa. marka waxaan leeyahay calankeena u soo halgama maadaama aan dhalinyaro nahay. calankeena waa inaan kor u qaadnaa, waa inaan ku faanaa maadaama dhalinyaro ah oo hadda soo koraysa aan nahay. odayaasheenina naga waxayna nagu tartargelineen waa inaan anaka soo muujinaa wadan kasta calankiisa ku faanaa. anakana calankeena ku faanaan ficnaa. Muqdishona barnaamij xaflado fara badan ka dhacayo. haatana hataa adiga ujeedadba xaflad aad weyn loo saagaasibay. madaxda degmooyinka qaar ay wada joogaan. halkan aad baan ugu faraxsanahay dareenkayga. wallahi wax la soo koobi kara maahan. taas igu abuuraysa dareen saad u sareysa. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Faysal Abukar Warsame. maanta dareenkayga aad ma la soo koobi karo.
aadan u faraxsanahay inkastoo ay tahay sanad gudaha 26aad ay tahay maalinta ay la tahay calankeena Soomaaliyeed aadan u faraxsanahay dareenkeena la soo koobi karo inkastoo aad dareenka la soo koobi karnaa maanta waxaan qabsanaynaa xaflad loo talgalay maalinta la taagay calankeena Soomaaliyeed aadan u faraxsanahay mar labaad waa dareem kartina amalena hadalkeeda aan idkafay waa farxad ay dambalsay oo awgeed rabbi naxariistii janno ha ka waraabiyo geesiyaashii u dhabagalay sidii xurriyad iyo neecaw barwaaqo ugu noolaan lahaayeen ummadda Soomaaliyeed maantana ay tahay maalin xusuusteedu ay ku weyn tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan